xitaa mataqaanaa marmar waxaa jirtay inuu mataqaanaa gacan ii qaado anoo uur leh yacni haddana waxaa ahay dadka markay walacaan mataqaanaa zaaid u tabarbeelo cuno ma cuni jirin biyo ma cabi jirin qaxwo bisaa ku noolaa oo cabi jiray bacdi waxaa dhacday tamar amaanta iskaga difaaciya hadal amaanta iskaga celiyana malihi yacni wuxuu raweygi samaysan jira marmarka qaar way dharbaaxaa marmarka qaar baaquli biyo ku jiro wuu igu firdhinaa indhoha igaga shubaa haddaa hadlan waxaa la dhihi jira yacni ma hadasho gabar markii la guursado waa gardaran tahay joog gurigaada okay ninkaas adigoo uur la xaamilo gacan kuu qaadayo gacan way qaadataa shaki la-aan waaye gacantan wuxuu kusii darsanaya inuu mataqaanaa gabdhaha xaafadda oo dhinaca ka degan xaafadda sebian qofka taqaana xaafad mataqaana saa isku saarsaaran waaye marka gabar kastoo meesha degan waa laiswada yaqaanaa wuxuu sameynaa marka caawaba mataqaanaa gabadh oo ka helo oo xaafadda mataqaanaa ay wada sheekaystaan wuu soo wadanaa gurigeyga dhabarkiisoo la maraa habeen marka waxaa jirtay anuu yacni iska xanuunsanoo xaamilo markaas aan yacni soo dhadhowahay dhalowgeyga abaayo iyadoo marka xaafadeeda ka imaadaya asoo mataqaanaa gabadhi wato ee iska hor imaadeen walaashii way iska hor imaadeen marka iska hor imaadeen kadib way fiirisay saanoo u eegay hadduu yacni oo aabo iyo waalid iyo gadaal uu ka baqi lahaa yacni shucuurtiisu isbedel lahayd laakiin shucuurtiisa ismay bedelinoo waxba kama soo qaadin gabadhiba garabka saas intoo hore uu sii saarto hore usii kaxaystay abaahay saani u eegtay way soo dhaaftay markay soo dhaaftay guriga igu timaaday waxay igu tiri maxamed aawe waxaa ku yiri ma joogo maqan yahay magaaladuu jira ayaa u malaynaa waxay igu tiri marka magaalo ma jirin gabaruu inta la maraayay indaa kacdid aabaha wax jiro u sheeg waxaa ku dhahay marka hadda abaayaani maxaa ka faa'iidaa inaa aabahey wixii jiro u sheego waxba iima soo kordhin dhowr mar u sheegay yacni ninkan arrintiisa meel iga saar dhahay asna aabahey waxba kama soo qaadayo